الرحيم halkan maanta nagu kormeer nagu yimi wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo wafdi uu hogaaminayo wasiir halkan aynu ku sugannahay xafiiska waxbarashada gobolka Saaxil guud ahaan haddii aan warbixin yaro kooban ka siiyo gobolka Saaxil iskuuladu waa 120 iskuul waxa dugsiyo hoose dhexe ah 110 iskuul halkeejiyadu ku jiraan waxa gobolka ka jira wasiir 4 jaamacadood oo kala ah jaamacadda Golis branchkeeda Berbera jaamacadda Badda Darnofa iyo Alfo guud ahaan gobolku wuxuu qaybsamaa wasiir 8 degmo marka hore 2 degmo doorashaas jira degmo doorasho Darnofa xanaanada xoolaha sheekh bay ku taala waatiha xanaanada xoolaha waa veterinary gobolku guud ahaan 2 degmo doorasho qaybsamaa degmada Berbera iyo degmada Sheekh waxa ku yaala 46 iskuul secondary iyo primary iyo KG isugu jira degmada Berberana waxa ku yaala inta kale aan sheegay waxaan la joogaa halkan maayirkii oo runtii kamida maayirada aadka xoogaalka uga waxbarashada inaan sida dhowna oo nolol shaqeeya degmooyinka kale dhiida marka aan tiriyo gobolka guud ahaan 8 degmo qaybsamaa sidaad ka warqabtay wasiir gobolkani waa gobol dusha marka la moodo kooban laakiin wuxuu xuduud la leeyahay 5 gobol ee kalaba waxa uu xukumaa xeeb dheer oo ilaa 400 kilomitir xaggan 150 kilomitir baanu gobolku fidsan yahay xagga barigana waxaanu xuduud kala leenahay Sanaag iyo Sool xagga koonfurta waxaanu xuduud kala leenahay Togdheer iyo Maroodijeex Sool degmada Caynaba ayaanu xuduud la leenahay ceelal buuraha la yiraahdo waa original degmada Caynabo gobolka Sanaagna degmada Hulul ayaanu xuduud kala leenahay marka gudoomiyo gobol baaxad wasiir waa gobol baaxad leh oo runtii waxbarashaduna meel fiican ay marayso waxa iyadana sharaf gaar ah noo amaanta inuu shirkan iyo kormeerkan nagala soo qayb galo maayirkii degmada Berbera oo runtii ah maayir la fadhiyo waxbarashada gobolka waxa uu guna siyaasayida 240 macallin dugsiyada hoose dhexe wax ka dhiga runtii degmada Berbera duruuf gaar ah taala wasiir waa xeeb macallimiintu inta badan way kala qaaran yihiin oo xilina xaga waxa loo baxaa oogada iyo meelaha qabow xilina waa la soo xaroodaa sidaas daraadeed macallinka Berbera jooga duruufo gaar ah haysta wuxuu u baahan yahay marawaxad iyo biyo u cabo saayida waxa laga yaabaa mushaharkiisuba inay leerka kaga baxaan iyo marawaxada duruufta iyo xaaladda ugu xiran markii uu maayirku arkay waxa uu go'aansaday inuu macallimiinta degmada Berbera macallinkiiba $50 oo incentive saayida uu siiyo GBL-jigu bariga hore konton macallin oo kaliya siin jiray oo UNICEF bixin jirtay kadib duruufta iyo xaaladaha markaan aragnay 240 macallin ayuu maayirku guno dawladda hoose ahaan ugu qoray waxa kale oo jira wasiir waagi hore dawladda hoose ismaanaana qol xidhiidhna naga mudhaxayn mashruuca maamul daadajintu waxa uu noo faa'iideeyay resource-kii dawladda hoose inaan bulshada uga faa'iideyno hadday iskuul dabayl qaado hadduu dumo intii wasaaradda laga raadin jiray wasaaraduna hay'ad iyo mashruuc la sugu jiray maanta on the spot saacadda iskuulka dabayshu qaado intaan dawladda hoose la kulmaynaa baa naga xigta dhismihiisa marka arintaasina waa arin aad iyo aad aan ugu muhiimsan waxaan jecelahay inaan xusuuso gudoomiyo saaka halkan xaflad sagootin ugu sii qabanay barasaabkii hore oo dhammaan inta gobolku ka kooban yahay iskuul taagay isagoo ku shaqeynaya qorshihii qaranka iyo qorshihii 5 sano ee wasaaradda waxbarashada bulshada isaga iyo maayirku waxay ku abaabulayeen in la kordhiyo tirada ardayda 2019 safarkaas noo qabsoomay si dhowna waan u wada shaqeynaa gobolada kale waxaan anagu dheernahay team work baanu leenahay haddii iskuul ardaydiisu hooseyso maayirku wuxuu raaciyaa xildhibaanada cuqaasha odayaasha iyo cid kasta oo haldar u tahay barnaamijka wasiir imika aad gobolada iyo degmooyinka ka wadeen TV-gan ku daawanayni barnaamijkaasi anaga hore ayuu noogu qabsoomay imikana waxa sanadkan qorshaha noogu jira mashruucii ugu balaadhnaa ee maamul daadajinta imika waxaanu dhagax dhigoodu noo qorshaysnaa aniga iyo maayirka ilaa 8 iskuul oo min 2 fasal lagu darayo extension-ka mashruucii maamul daadajinta ku qabanaynay waxaanu doonaynay iyana qorshaha noogu jiro on doonaynay kormeerkooda inaanu mar tagno qalabayntii ilaa 6 iskuul inaanu qalabayno waxa iyana qorshaha noogu jira settlementiskii wasiir meelo kamid ah wax ka dhisnaan hore kugu soo gudbinay iskuul cusub baa jiro Geeriya oo settlementiskii markii hore bilaa iskuulka ahaa ayaanu imika iyana iskuul cusub ka dhisnoo dawladda hoose mashruuca maamul daadajinta ka fulisay waa dugsiga Geeri la yiraahdo halkan aad sii maraysaan imika wadada Hargeysa
iskuul weyn oo ku yaala iyadana 2 fasal baan mashruuca maamul daadejinta kaga daraynay kulli mashruucaas wasiir uu balaaran yahay oo inaad anaga ayaamana la qaadato dhagax dhiga iyo xarika jarista iyo hawlaha aynu qorsheyno guud ahaan waan kugu soo dhaweynaynaa gobolka waxaanaanu diyaar u nahay qorshaha dardargelinta iyo istiraatiijiyadaha sanadadan wixii nagaga aadan inaanu dardargelino oo diyaar garowno waanaanu idin sugaynay tiimkiina runtii shaqo balaaran baad ka wadeen gobolada xagaaga asma guud adiguna waa adiga bariga ku maqnaa barnaamijyadaasna waanu sugaynay tiimkii nagu qornaa inay noo yimaadaano agaasimaha tacliinta sare markii hore nagu qornaa dubuusan nooga yara dhacay wasiir deetaana waynu ka tashan doonaa sidii aynu howlaha u qaban lahayn waxaan ku soo dhaweynayaa imika maayirka degmada Sheekh si uu kelmadu yiraahdo kadibna